السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا qiimaha badan meel uga joogtaan salaamantiin oo walaalkiin injineer Kaafi Cabdullaahi halka iga daawanayso barteeda YouTube iyo qoran magaca injineer Kaafi Cabdullaahi hadaba ku soo dhawaada muuqaalkayga maanta waxaan doonayaa inaan uga hadlo wax loo yaqaano sida title-ka ka aragtidba todobadaas qodob oo ka caawinayso inaad baratid luqadda afka Isbaanishka intaan kula wadaagin todobadaas qodob ama aan guda galin todobadaas qodob fadlan haddii tahay markaad ugu horeysa soo booqato barteeda YouTube channel-ka aan ku leeyahay ku qoran magaca injineer Kaafi Cabdullaahi subscribe saar sidoo kale dadka iga daawanaysa barteeda Facebook page-ka aan ku leeyahay asagana igu qoran magaca injineer Kaafi Cabdullaahina follow isoo dheh sidoo kale tan muuqaalkan aan tilmaamay inaad like saartid sidoo kale tan share dheh ugu horeyn markaad rabtid luqad inaad baratid luqad waliba ha noqoto ama English ha ahaato ama Spanish ha ahaato ama Carabi ha ahaato ama luqadeena hooyo af Soomaaliga ha ahaatee ugu horeyn waxaa laga maarmaan ah oo qodobka koowaad inaad baratid aasaaska kaasoo aan ka wado inaad baratid wax loo yaqaano alfabeetada afka markaas aad doonaysid inaad baranaysid hadda maanta waxaan ka hadlaynaa waxa luqadda afka Isbaanishka aasaskeeda waxaa noo ah alfabeetadaasna sida wada ognahay qoraal ahaan waxay u qoran tahay sida English luqadda Englishka laakiinse dhawaaq ahaan way kala duwan tahay oo ereyo badan ayaa waxay iskaga sameeyeen dhawaaqooda af Soomaaliga marka ugu horeyn qodobka koowaad aan rabaa inaan kula wadaago waxay tahay luqadda aad baranaysid ama Spanish ha ahaato ama luqad kale ha ahaatee inaad ka bilaawdid barta aasaaska oo ah alfabeetadeeda marka alfabeetadeeda aad baratid inaad hore u sii wadid oo aad baratid wax ku xijinaysid waxa waaye kuwa ugu hooseeyo aasaaska ayagana oo ah inaad baratid maalmaha lagu yiraahdo waxa maalmaha lagu yiraahdo isbuuc maalmaha ku jira isbuuc waxa lagu yiraahdo bilooyinka ku jira sanadka waxa lagu yiraahdo afka Isbaanishka xilliyada sanadka afarta xilliye ee sanadka ah waxa lagu yiraahdo afka Isbaanishka midabyada oo kaleeto lambarada oo kaleeto kuwaas waxa waa aasaaska ugu horeeya oo markaad baratid alfabeetada inaad kuwaas ku xijisid sidoo kale tan alfabeetada waxay wadataa wax loo yaqaano inaad taqaanid ereyada vocaleska sida u kala baxaan Isbaanishka laba loo kala saaraa vocales fuerte iyo vocales débil ayadana waa kuwa aad u muhiim ah haddaad rabtid inaad ku dhawaaqdo ereyadaas oo kaleeto sida isku raacayso inaad baratid midka koowaad midkii labaad waxaa waaye barasho ereyo cusub inaad maalin walba aad baratid ereyo cusub maalin walba waxaa samaysataa dhowr erey inaad baratid kasoo qaad inaad maalinkii aad baratid 5 erey ama maalinkii inaad baratid 10 erey haddaa ka badan kartidna adaa ka badan kartid laakiin ani ahaanteed talo waxaan kugu siinayaa haddaad bilow ah mar tahay inaad u dhexaysid 5 ilaa 10 oo maalin walba aad baranaysid haddaa maalinkii 10 erey baratid waxay ka dhigantaa bisha inaad baratay 300 oo erey haddii aad maalinkii 5 erey aad baratidna waxay ka dhigantaa bisha inaad baratay wax loo yaqaano 150 erey marka waa muhiim inaad maalinkiiba aad baratid 5 erey ilaa 10 erey inta كان سدحد وحواي إن جوكتين إن أكون سميس دقيسية واتين سدحد تين كود عن قصة بلاوني إن بريتيد أساسك وجوه ريال الفبيتة يوحي الله سمع سيدا معلمها بلاها اليدا مذابيدا إن نبرد إلى نبر كلواتنا إلى ميلاس نجيسكو إلى لواتنا ميور إلى لواتنا كان لو نحكو شغني إن أريا والباع بريتيد أريا عثمان والباع بريتيد شان أريا 8 أريا تولي حكسو كان سدحد محواي وجوكتين إن جوكتيسيد دقيسي إن جوكتيسيد دقيسي محاواي هذا مرة بقى جوكتيسيد مان 5 erey baratay 5taas erey dhawaaqooda si loogu dhawaaqay iyo qaarkood erey kale la halmaalo aasaaskaas oo kale salaanta iyo waxyaalahaas la halmaasho waxyaalahaas markaad dhageysid waxa ku fududaanayso aasaaska ugu horeeya inta ku guda jirtid qofkii ereyadaas kugu dhaaf biri ka maalin inaad fahmi kartid ugu horeeya waxa laga jeedo keena afraad waxa waaye hadalka iyo ku celcelinta inaad mar walba isku daydid inaad hadashid haddii tahay waxa ku hadlaysa ama sax ha ahaado ama qalad ha ahaado fadlan ha cabsanin ha u fiirinin marka ugu horeysid aad baranaysid luqad ama guda jirtid oo bilow tahay in ereyada sax yihiin ama inay qaldan yihiin sida aad ku gudbin kartid qofka luqadaas yaqaana ama u dhashay uu ku ixtiraami doonaa sababtoo ah waxa uu og yahay inaad baranaysid wixii qaladna asaga ka qaban doono ama uu ku fahmi doonaa responsiga ama jawaabta uu siin doonana waxay noqon doontaa
mid uu fahmay ereyada sheegaysa. Hadduu ku fahmi waayana waxay isku dayi doonaa inuu sifooyin kale kula hadlo ama aad waxyaalo kale adeegsatid. Marka waa middaas, waa midda hadalka iyo ku celcelinta waa midda midda shanaad waxay tahay akhriska iyo qoridda. Akhriska iyo qoridda waxay ku xiran tahay inaad kolka ugu horeysa soo baratay wax loo yaqaano aas-aaskeed oo ahaa alfabeetada. haddaa alfabeetada si fiican usoo baratid wax waa qori kartaa waana akhrin kartaa. Marka that's why dad qaarkii waxaa jiro aanan qorin aanan akhrinin laakiinse ku hadli kara luuqadda afka Isbaanishka ama luuqad waliba. dad badan waxaa jira aanan qori karin aanan akhrin karin laakiinse ku hadalkeeda u fududahay. Okay, laakiinse waa muhiim inaad qori kartid waxna akhrin kartid. marka qodobkeena shanaad. qodobkeena lixaad waxaa weeye daawashada muuqaalada. haddaa muuqaalada isku fiicneena inaad daawatid podcastiga. sidoo kale tana dhegeysigana kama maro. mar haddaa wax daawanaysid ma aha micnaheeda inaadan dhegeysanin. marka dhegeysigana wuu la socdaa. marka inaad daawatid ama aad dhegeysatid podcastiga waa muhiim. haddaadan xiiseynin muuqaalada sida filmada oo kaleeto ama seasoniska filmada loo yaqaano seriaska wax loo yaqaano aadan daawanaynin, waa inaad ku bedeshaa podcastyada kaasoo looga hadlayo mawduucyo ama podcastigaas ha ahaado mid dhegeysi ah ama ha ahaado mid toos ah ugu dhegeysanaysid. qodobkeena toddobaad oo ah kan ugu dambeeyana waa kan ugu muhiimsan oo ah qorshe iyo joogteyn. waxaana loo yaqaanaa Isbaanishka afka waxaa loo yaqaanaa disciplina iyo constancia. kuwaas waxay ka tarjumayaan waxay tahay inaad joogtaysid waxaana baranaysid, qorshana u samaysid. micnaha aadan ka boodin. maalin walba oo jadwalka aad samaysatid oo qorsheysay inaad ku dhaqantid. Okay, inaad maalinka baratid 2 erey, maalinka inaad baratid 5 erey cusub, inaad baratid 2 fal, inaad baratid 2 sifo, inaad baratid waxyaalahaas oo dhan waxay kaa caawin doontaa wax loo yaqaano inaad wadid qorsheyntaas iyo joogteynta. labadaas marka aad ku dhawaaqdid ama ku dhaqantid waxay noqonaysaa inaad luuqadaas aad ku guulgaari doontid. Okay, marka guushay ku xiran tahay. todobada qodob marka dul maro waxay tahay waa midka koowaad ee barashada aas-aaska oo ah alfabeetada iyo wixii la halmaalo. 2 barashada erey cusub maalin walba, taasoo waan kugu duwaaniyey inaad baratid maalinkii 5 erey ilaa iyo 10 erey inta u dhexeyso. dhegeysiga joogtada ah inaad joogtaysid dhegeysiga. Okay, luqadda afka Isbaanishka dhegeysigeeda inaad joogtaysid. hadalka iyo ku celcelinta inaad hadashid. Okay, hadalka aad ku hadashid ama ku celcelisid waxay kaa saaraysaa cabsida gudaha kugu jirta. mar qaarna waxaa hadaad awoodid isku day inaad iska duubtid ereyada micnaha hadalka ku hadlaysid inaad iska duubtid kadibna aad dib isku fiirisid inaad ereyadaas qaldaysid iyo inaad saxaysid waxa ku hadashay. Okay, akhriska iyo qoridda. waa akhriska iyo qoridda waa midda shanaad. inaad wax qori kadib mar walba isku daydid ereygaas inaad qortid ama hadaad soo baratay wax loo yaqaano barashada oo alfabeetada ah soo baratay, taas waxay kaa saacideyn doontaa waxaa waaye inaad wax qori kartid. Okay, ama aad akhrin kartid wixii lagu qoray aad akhrin kartid. marka ballan xooga hala saaro vocales débil iyo fuerte sidee isku raacaan. haddii 2 fuerte israacdo ma lagu dhawaaqi karaa mise waa laga kala dhawaaqi karaa. débil iyo fuerte haddii israacaan marka taasna waxaa jirto muuqaalaha 10 aan kasoo sameeyey waa ka daawan kartaa. kan lixaadna waxaa waa daawashada movieska ama filimada ama seriaska wax loo yaqaano. haddaadan kuwaas xiiseynina inaad ku bedeshid wax loo yaqaano podcastyada inaad daawatid ama inaad dhegeysatid podcastyada. podcastyada waxay u kala baxaan qaar aad daawan kartid oo dhegeysani kartid ama qaar dhegeysi kaliya. iyo kan ugu dambayso waa qorsheyn iyo joogteyn oo loo yaqaano disciplina iyo constancia. todobadaas qodob waa todobada qodob oo ugu muhiimsan. walaalkan injineer Kaafi Cabdullaahi ibn sidaas inuu geliyo. Assalaamu calaykum warahmatullaahi taala wabarakaatuh.